تامرك معناه هذا وحا أي كينيسا باريتان كأن سميني إن أو كسو آذايو إن لغا إلاليو جرير السياسة العامة إدارة العامة نظام الدولي يعني سياسة الجود إن لغا إلاليو جرير النظام كجود الدولي لغا إلاليو جرير إن يعني لغا إلاليو إدارة العامة أما public administration of the country يعني ودن كسياسة أولية هاي أما مامل أولية إن جرير لغا إلاليو وسن أود إيسن كيلين محدي ذايو إثيوبيا ودو إيه كينيا وجرير وكوكوين سنوينيالا أما جرير أو كان معمولنا وجرير كو جوجو شعب كانوا وجرير مركز الصومالية دحديدا هدي هذا الكي وحا إيمانا مركز أودياشي جرير أي دين هدي سنجوك هوس جرين جرير محاجانا لوغو إلاليه تام وحا أي كو إمادي يقابكي أتميدا وحي كينيسا إن جالسياد ليري جرير كإلالي جاقادا صوبتا أو جرير جاقادا كإلالي اللولية هنا وحي تاهي وواح مرة رسول بالله قرنميكو رسول بالله ويان wax looga ilaalinayo waxay tahay jaalisiyaad ba hadda ka hor wax uu socdaalay baa liiray dalka Zimbabwe asigoo wata borotokolkiisa mid kamid ah oo jareera ayuu hore u sii kaxeystay wadanka Zimbabwe ka degeen meeshii laga rabay in madaxweyne siyaad ama jaalisiyaad la maamuuso oo la soo dhaweeyo kii borotokolka jareerka ee madaxweynaha la socday ayay kuwii jareerta ayo Zimbabwe maamulayay ay soo dhaweeyeen marka ay soo dhaweeyeen oo ay hab maamuus madaxweyne ay siiyeen oo xogtii la wareystay oo ninka borotokolka ahaa ay wareysteen ayagu waxay u moodayaan maadaama wadan Soomaaliya oo Afrika kamid ah ay ka imaadeen nimankan inuu ninkan borotokolka oo madaxweyne u yahay ilaa waa asiga waa borotokol oo madaxweyne kale ayaa jiro oo siyaad liira kadib uu sheegay in madaxweyne siyaad barre ama jaal maxamed siyaad barre uu yahay madaxweynaha asigana oo borotokolka madaxweynaha uu kamid yahay markii uu madaxweyne siyaad ka soo laabtay Zimbabwe wixii dhici rabaa haba dhacaane oo Zimbabwe ka soo laabtay asiga iyo borotokolkiisii iyo qoladiisii la socotay iyo wafdigiisii ee Soomaaliya yimaadeen baa madaxweynayaalkii hore madaxweynaha uga caansan hadeer oo madaxweynaha ugu horeeyay kamid ah ayay maxuu ahaay oo wareystay markaa baa liirahay jaalisiyaad maxaad ku soo aragtay Zimbabwe markaa uu yiri waxa aan Zimbabwe ku soo arkay waa waxa aan malaysanaynin waa waxa baa igu soo dhacay anoo madaxweynaha baa borotokolkiga madaxweynaha loo maamusay buu yiri markaa uu yiri kullama aad jariir talaabo aad u ogolaatid ogow talaabo horumara inay qaadayaan wadamada saaxiibada ah ee diriska aan wadanaho dhanna fiiri waa wada jariir wax maamula awood ay yeelanayaan jaalisiyaad jariir jaga ka ilaali maalinta baa la diiday maalinta baa jaalisiyaad uu yiri qabiil baan duugay oo asigoo ku hoos gambanaya howlihiisa hoosana wata nidaamkiisa dawliga ahana wata kali talisnimadiina wata jaal xilliga wixii ka dambeeyay nin jariir ah wadanka kama oonan bixin kii aqoon leh oo wadanka waa ka baxay yiraahdana waxa lagu qabanayay berbere iyo boosaaso iyo xuduudaha lagu qabanayay kii elborgan ka baxay yiraahdana marka xogaa lacag isbado ama dhaqaale yar oo isbadana in la qabtaa la xiniisiibay saldhig baa lagu haynay ما مقاشين تيتيلي أما بلعت ماشي اللي يرادو تيتيلي لو أقوني جري نين هذا كهرجالسيات كعد صدي باشكوليتي أما باسكيل ما مقاشين شكلها سنين جريرها وجالسيات أويري ما حد أسانيسا تا معناه هذا وحويا نينك أقون له بقى أما نينكي أو دت كان هور موضوع أود أما هذا الله أما بلشك إن كربا إن لحنيس يبقى أما إن لقبته أما إن نظام كلاجئ إلى مركبي رير جرير وحير هذين هدي سنجو هدي أي سنجوك جوك هوس جرين جرير محا جنن لوغ إلالي أما محا جرير جغل لوغ إلالي ما أركتا مركي مدحدي سياد بروحي كدنبي مدحوين الصوماليات أو ودن أفريكانا آذايو ما أركتا أو نم جريرة هور وكحيسناي ما أركتا مدح أو نم جريرة هور ودم أفريكانا وصعود ما أركيسيد ما أركي دونتين سيدو كله نكي جريرة أو حل وحي مركا كدنبي وحياو بدنا إسو فولناي إسو أجمراي كي جرير أو مركا سيدا هذا في جرير يا أو عنزن جرير سياسة ده مركي ليراد النظام السياسي إيو النظام الدوري إيو النظام الدولي إيو الإدارة العامة جرير لقى إلى اللي مركا إذن ليه تصالة عن إذن سينايا تصالة عن إذن سينايا وحكمده بروفيسور نلحا واحد لبان جريرة هنترن كسوجيدو باش جريرون محو هاي وكمة لا حلبان لماذا ماشي waxaa lagu mashquuliyay meeshii in yaani safiir ama maxaa ahaa laga nin weyn oo yaani marka wadamada Afrikaanka matala Soomaaliya ku matala meeshii laga dhigi lahaa waxa la yiri baarlamaanka Carabta Masar lagu weerariyay baarlamaanka Carabta lagu weerariyay Masar ku jirta markiiba maxaa ahaa professor Dalha xillo magacaaba la yiraahdo baarlamaanka Carabta la geynaya Masar iyo meelaha Qaahire iyo Suudaan iyo meelahaas ka ridayaan kan kale maxaa ahaa Daawud Aweys waa wasiirka wasaaradda warfaafinta waxa dawlad kasto timaada Daawud Aweys waxa ay ku mashquulisaa wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka dekedda lagu mashquuliyaa
lama dhaho hebel ambassador hebel ama sidoo kale shaqo hebel oo wadan jariira ka shaqeynaya ma arkaysid waa lagu mashquuliyaa sidoo kale waxa ugu dambeeyay kaalmo ayaa ugu dambeeyay Allah u naxariisto oo booskiisina la wareegay sidaas daradeed marka jariirta janan iyo jago waa laga ilaaliyaa sababtoo loo ilaalinayo waxay tahay kulama jariirtu uu talaabo u qaado wadan Afrikaana ama wadan Afrikaana oo la hadli maago xogta iyo waxyaabaha uu bixinaa waxay tahay wadanka Soomaaliyeed xaaladda uu ku jiro iyo sida uu yahay inuu ugu warbixin karo jariirtaas kale Afrikaanka kulama Afrikaankaasi oo garab oo ka heli karana wadanka Soomaaliyeed waxa ay caqabad ugu noqonaysaa nimankan laba goodlaha ama hawiyaha ama daaroodka ama dir iyo waxyaabaha kala daran sheeganaya inay wadanka ay maamul buuxaba ay keeni waayaan daradeeda jariir janan waa laga ilaaliyay halka ay